maraya ku-xigeenka caasimadda Hargeysa ayaa maanta wareysi u siiyay warbaahinta qaar shacabka reer Hargeysa u soo jeediyay in ammaanka dhowran xaaladdan ay dejiyaan kana waantoobaan mudaharaadka ay dhigayaan. waxa kale uu sheegay wakaaladda biyaha Hargeysa ka howlantay ilaa tan iyo habeen hore siday dadkeedaasi biyo la'aantu heshay ee biyo ku filan u gaadhsiin lahayd. maraya ku-xigeenku waxa uu shacab ku dhaqan caasimadda Hargeysa u ballan qaaday inay sida ugu dhaqsaha badan u soo gaadhsiin doonaan biyo ku filan. waxaana uu yidhi والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan jecelahay inaan gaarsiiyo fariin shacabka anigoo ku hadlaya afkayga ka maareeya ku-xigeenka wakaaladda biyaha ee Hargeysa. waxaa jirta maalmahan ugu dambeysay arrin saxaafadda ku soo baxaysay oo maxay ahayd biyo la'aan soo food saartay shacabka qaarkood. anuu ka wakaalad ahaan ma jirto xaaladdan xilligan maanta taagan biyo la kordhiyey oo wakaaladdu kordhisay, laakiin waxaa jirta cabasho xooggan oo xagga maxay ahayday booyadaha xagga cashuurta. marka waxaa jirta dadaallo fara badan oo arrintaas laga howlgelayo. waxaan shacabka aan u soo jeedinaya inta arrimahaasi socdaan inaan lagu degdegin oo aan la siyaasadayn arrimaha biyaha. ma fiicna in mudaharaadyo iyo rabshado laga hortago. waxaa jira mar kastaba xukuumaddu waxay ku howlan tahay waxqabadka shacabka. waxa weeye shacabka waxaanu sheegaynaa inaanu maqannahay inaanu u soo wadno biyihii oo hadda mashaariic fara badan ay socoto. uu ka mid yahay mashruuca biyogelinta Hargeysa ay naga caawiyeen European Union iyo ka mashruucan kan maxay ahayday Jaleela iyo Xubaweyne. marka waxaa odhanayaa fariinta ay gaarsiisaan qolada saxaafadda inay maxay ahayday wakaaladdu ay u maqan tahay. wakaaladdu iyo xukuumaddu labadu ay u maqan tahay. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waalaikum Ismaaciil cali. waxaa jirta dadaalada la sheegtay in lagu raadinayo xal qayb ka mid ah biyo la'aanta Hargeysa iyo booyado biyaha u dhaaminayeen. waxaa jirta markay ka mudaharaadeen cashuuraha ay xukuumaddu ku soo kordhisay dheeraadka ay booyaduhu ay sheegayaan in xataa loo adeegsaday ciidamada ammaanka qaar ka midana oo xidhay. arrintaas see kuma muuqata adiga guddoomiyaha? arrintaas waxay ila muuqataa arrin qaldan. ilaa haddana dee waxa weeye fariin saxa oo ka soo baxday arrintaasi ma jirto. filmayna aalaabiyadu inay magaranaysaa shacabka ay dhibaysa, laakiin iyagunbay u maqan tahay oo iyagunbay dee nabadgelyadooda ilaalinaysaa. qolada aalaabiyada iyo boolisku waxa weeye dee nabadgelyada shacabkunbay ilaalinaysaa. marka saasayna ila muuqataa. haddii aan ugaa su-aal ku weydiiyo ka wakaalad ahaan waxaa jira xaafadaha noo kale imanka ilaa 3 maalmood wax biyaa ma helin. waxaa jira dad iska dayan oo aan iyagu xataa foostooyin iyo waxaa dhan jirkama dhaansanayo. kuwaas markaa dadkaasi wax biyo iyagu aad sii gaadhsaan ma ugu tala gasheen oo ka wakaalad ahaan aad xaafadaha gaadhsiisaan maadaama booyadii u shaqaynayay ay dowladda xidhay? wixii anagu aan biyo haynay ilaa xalay toole looma kala seexan. istanbul beebka weyn ee wakaaladda biyaha Hargeysa xalay toole istanbul baa loo ahaa. wixii booyadaha qaarkood iyo booyadaha dowladda laftirkooduba xalay oo dhan halkan baa laga dhaaminayay. wakaaladuna waxa weeye istanbul wahay. marka wakaaladdu dadaal bay ku jirtaa inay shacabka biyaha gaadhsiiso. xitaa booyadihii inta bartan ka dhaamina ay shacabka gaadhsiiyin. marka ka wakaalad ahaan dadaal dheeraada ayaan gaadhsiinaynaa. dadka biyaha la waan ka warhaynaa waanaan u maqannahay iyagaan maqannahay. intaas daawadayaal waxaan ku soo gabagabinaa barnaamijkan idinka soo diyaarnay maraya ku-xigeenka caasimadda Hargeysa oo wareysi u siiyay warbaahinta qaar shacabka reer Hargeysa u soo jeediyay in ammaanka dhowraan xaaladdan ay dejiyaan. intaanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waa anigu Maxamed Aadan Ismaaciil.